بسم الله الرحمن الرحيم أدبن ذي سلام يا دمانتين ميل والبات شوكتان ولكن مبارك هادي وإذن الله مركلة كسود وهذا برامجتي هذا قبرتين channel كان إن ما أنتوا حنجعل موضوع يرو دحتاله ومواضيع ذي دحتالك بربر سعودي برامج كويديني ورعليني برامج كفكر ذي بو إن إذن لو ذاقو وحنجعل يستيران ما أنت أنا يسوق بيو وحولي بقى عدو بيليهين horta maxaa qofka guusha iyo horumarka maxaa cadow ah ka hortaagan su'aasha maran isweydiinayay bay ugu dhasheen fikradan waxa jira afar arrimood oo laga yaabaa inay ka bataan laakiin inta ogaalkayga ah waxa jira afar arrimood oo qofka guusha ka hor istaaga oo qofka horumarka u diida oo cadowya ah marka waxaan dhigi karaynaa waa cadowiyada guusha afarta arrimood ta ugu horeysa waxa weeye waa doubts qofku inuu ka shakiyo awoodihiisa qofkan yar ee maartay xagga dambe qaybta maskaxdeena mar walba ina dhibay yiraahdaa waxa ma sameyn kareysid waxa ma yeeli kareysid hadafka ma hirgelin kareysid dadkan kula mid ma aha way ka awood badan yihiin way ka xirfad badan yihiin way ka aqoon badan yihiin hebel oo kale ma noqon kareysid qofka wuxuu qabtay ma qaban kareysid yani qofkan yar ee gadaalun xaga doubtska nagu keenay shakiga inaga gelinaya awoodeena iyo kartideena iyo karaankeena qofka isaga ah waa arinta ugu horeysa waa cadawga ugu horeeya ugu weyn qofka ka hor yimaada arinta iyada ana qof kasta oo dunidan dul saaran si un bay saameyn ugu leedahay laakiin halka la isku dhaafay waxa weeye ragga cudamada ama dadka waxa weyn qabta wax ku soo kordhiyay nolosha iyagu uma joojiyaan qof wal oo maanta qof kasta you name it qof kasta maanta caana qof kasta maanta horumar keenay qof kasta maanta wax qabtay wax weyn oo la yaabo xitaa qabtay kulli dadku way leeyihiin qofkan ka dhex qaylinaya dhahayo oo waxa ma qaban kartid waxa ma yeeli karaysid waqtigeedii lama joogo oo kaadi baqida waxa ku abuuraya qof waliba waa leeyahay laakiin qolana way dhageysataa oo way aqbashaa oo way ku raacdaa qolana way diidaa way maqashaa teeday ka wadataa marka arimahan waxa weeye qofku wuxuu isugu fiirsan karaa there so many limiting beliefs ay abuuri karaysa arinta laakiin qofku wuxuu isugu fiirsan karaa waxa inuu thoughtskiisa u fiirsado arintana bini aadamku u bildig maskaxda bini aadamku way u bildig garaysan tahay waxa la yiraahdaa qofku ilaa 80 kun oo fikradood baa maalinkii maskaxdiisa ku soo dhaca ama 80 fikradood bay maskaxdu qofka bini aadamka ay ku fikirtaa 80 kun 70% ka mid ah daraasaadku waxay tilmaamayaan inay tahay negative ama ay taban yihiin fikradahaasi oo ay ka mid yihiin fikradaha hadda inagu soo laabtay waxa ma yeeli kartid waxa ma sameyn karaysid halka ay ka yimaadaan culimadu waxay tilmaamayaan in environment-iga tahay bi'adii aan ku soo kornay oo kale tahay qof marka uu dhowr iyo 10 sano jiro ugu yaraan wuxuu maqlay baa la yiraahdaa 150 kun oo eray oo negative ah ma sameyn kartid iska daa dhaaf ha yeelin ha dhicin kan halka cagsigeeda uu maqlay baa la yiraahdaa 5 kun oo eray oo positive marka arintaas kamida siyaaboyin badan oo maskaxda ugu bildi garaysantahay baa jira negativity-gan oo ay anagu na difaacdo halka qofkan ka dhex qaylinaya in uu de ku digayo laakiin inaad iska raacdo ma aha oo aad tiraahdo wallahi waxaan ma sameyn karayo way kugu dhalatay ama sameyn karaysid iska daa marka waa inaad u joojin waa cadawga koowaad cadawga labaad qofka horumarka iyo guusha ka hor istaaga waxa weeye waa comfort zone-ka arintan bay raacsan tahay qofku inuu meel yaro daa'irada qofba hadba daa'irada aad ku jirtay aad la qabsatay waa comfort zone-kaaga markastoo aad damacdo inaad hore uga yara dhaqaaqdo markastoo aad damacdo inaad hore uga yara baxdo tallaabo aad yara qaado baqadin baa ku galaysa taana macnaheedu waxa weeye baqlinta waxay ku digaysaa waxa kula wixii aad u baratay ma ah baqdintu there is a reason ay u joogto yani oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo talagalay oo inay inoo digto waa alarm waa beel waa koor inoo mar walba inoo qaylinaysa reason waxa weeye in ay inoo digto khatar baa iman karaysa comfort zone-kaagii baad ka baxday marka baqdinta waa inaad dareentid laakiin waa inaad u joojin waa inaad hore uga socoto waa noloshaada iyo wax wal oo aad doonayso nolosha waxay xagga kale ka jiraan
comfort zone-kaaga halka daa'irada aad ku raaxaysanaysa ama goobadan aad la qabsatay hadday shaqo tahay hadday wax akhris tahay hadday asxaab tahay hadday nooc kastoo nolosha ka mid hadday business tahay daa'irada mar walba aad la qabsatay ama goobadan aad la qabsatay aad ku raaxaysanayso waa waxaad u baratay wax kastoo markaa aad doonayso nolosha inaad gaadhana dhanka kale ka jirta goobada marka waa inaad baqdinta aad dareento buug baaba jira yidhaahda dareen hana u joojina hore uga sii soco isku dayaya inaan insha allah haddaan fursad u helay inaan idinkula wadaago barnaamijka fikradii buug marka comfort zone mar haddaad aragto inaad la qabsatay goobo inaad la qabsatay shaqo hadday tahay hadday buug tahay hadday waxay doontaba ha ahaatee mar haddaad aragto goobo inaad la qabsatay qabsigeedaas waa cadow ogow waa inaad ka gudubto waa inaad challenge cusub raadsato noloshuna dhadhan iyo macno waxay ku leedahay inaad mar walba mar ka dambeysa aad caqabadaha ka hor imanaya aad shiidho challenge noloshu challenge la'aan waxa weeye waa dhadhan ma laha macno badan ma laha qofka maanta buur dhakadeeda la saaro inta helicopter lagu qaado buurta dhakadeeda la saaro iyo qofka gunteeda intuu ka bilaabay fikteeda kale socod ku gaaray ama iyo fanasho ku gaaray labadooda markay fiktaas sare isugu yimaadaan isku dareen ma dareemayaan nina diyaarad baa lagu keenay ama helicopter baa lagu soo saaray nina isaga kartidiisa awoodiisa wuu jeclaystay wuu jamtay wuxuu yiri anigu buurtaasaan doonaya fikteeda sare inaan gaadho deetana wuu ka dhaweeyey challenge noloshu macnaha waxay ku samaysaa challenge daa'irada mar haddaad aragto inaad la qabsatay ogow inay tahay inaad ka baxdo marka cadowga labaad waxa weeye comfort zone-ka ha la qabsan mar walba isku day inaad hore uga gudubto arrinta saddexaad waxa weeye waa procrastinationka waa dib u dhigashada waa cadow dadku inta badan kuma baraarugsana qofku waxaa laga yaabaa waxbuu leeyahay beri u dib u dhigo berida kale dib u dhigo berida kale dib u dhigo maalinba maalin bay ku amahanaysaa muddo yaroo kooban wuxuu arkayaa iyadoo 10 sano ay soo dhaaftay deetana markaas waxa uu bilaabmaya qoomamo waxaa laga yaabaa 10 sano kale inuu qoomamo ku noolaado noloshiisana xilligii prime time-ka ay ahayd inuu wax badan nolosha soo kordhiyo ama noloshiisa uu heer gaadhsiiyena halkaasay ku baaba'aysaa marka waxba dib ha u dhiganin fikrad kastoo kugu soo dhacda oo aad is leedahay waad qaban karaysaa marka iyada diyaar ba marar badan wax kastoo isu ka gaadhin noloshu wax walba isuma ka gaadhaan waxaa la yidhaahdaa fikrad kastoo doonaysa inaad bilowdo you don't have to be great to start uma baahnid inaad qof wax walba diyaar u yihiin oo wax walba u dhammaystiran inaad noqoto si aad u bilowdo laakiin waxaad u baahan tahay si aad grade u noqoto waxa waa inaad wax bilowdo marka waa inaad dhaqaajiso wax walba inay isku ka gaarayaan mar wax walba isku ka imanayaan ma jirto marka fikraduna sideedaba waxa jira wax la yiraahdo the law of diminishing intent markastoo ay dib u dhacdo fikradda aad doonayso inaad hirgeliso ama waxa doonayso inaad qabato mar kasta oo ay dib u dhacdo waxa si yarata la yiraahdaa chance ama fursadda aad waxa ku hirgelin kari lahayd marka arinta ayadana aad bay runtii muhiim u tahay qofku inuu ogaado inay tahay cadow uu leeyahay oo nolosha ka hor istaagi karaya dib u dhigashada arinta aan ku soo gabagabeynayo waxaa laga yaabaa in qaarkiin inay hore u maqal laakiin wax la yiraahdo ego-gu waa nooc ka mid ah waruurka ama kibirka isla weynida qof walba inaga mid ah heer ku doon nolosha ka joogo in waxaa jirta isla hanweyni ama ego oo waana dhinac marka laga eego waa wax positive ah wax tagan weeye waa waxa inaan isla hanweynaano inaan wax qabsan karayso kaliya inaad meel ka soo bixi karayso waxa ina wada weeyaan waa nooc min anaaniyada ka mid ah waxayna wada laakiin waxay leedahay dhinac taban oo qofka guusha ka hor istaaga waa qaybtan aad ku diidaysa inaad dad kula ayniga aga oo aad u aragto inay normal yihiin oo waxba aan ku dheereen oo laakiin aad tuumaysa inay waxba kuma dheera qof ahaan markaad eegto laakiin qof waliba waxaa jira wax aad uga baahan tahay oo isagu hayo aqoon baa laga yaabaa qof waxa laga ugu yar baa laga yaabaa inuu xidhiidh ku sameyn karayo qof adigu aadan gaari karin oo isagu idin dhaxeeyo oo ku fududeyn karaya hawsha marka waxaa jirta marar badan isla weynayn iska weynaysiinayna dadka waliba qofku marka uu wax yara qabto marka uu isyara tuhumo marka uu wax yara u yara hargalaan oo yara guul yara u yara gaadho
inay ka hor istaagto inuu wax badan oo sanadaad aad u fara badan waqti ka qaadan lahaa inuu qof agtiisa jooga laga yaabaa inuu hayo inuu yiraahdo aniga waxaan ii faa'iiday aniga kamardan sida loo duuba ma aqaani inaan kamar duubaan rabaa YouTube aan samaysto dadkan wax u faa'iideeyo aniguna aan faa'iideysto aniga kamardan sida loo isticmaalo ma aqaani ibar hebelo aad ogtahay inuu ku fiican yahay laakiin marar badan iyagooga ku diiday wuxuu ku leeyahay maxaad waxaan saacadiguba isira waxeeyo waxa laga wax badan ajeebiso waqti fara badan ku weeleen lahaa arinta saaxiibada la mid ah saaxiibo fara badan waxa jira aan leenahay oo daacado si fiican inooga warhaya oo blind spot-keen oo dhan yaqaana daairadeena ka warrami jirnay nimankii psychologist ay sameeyeen Johari Windows waxay jirtay daaqad kamid ah daaqadaha waxay ahayd the blind spot waa daaqada dadka martida aad uga tahay martida ugu tahay oo dadka aad ugu baahantay inaad ka wareysato noloshaada ku saabsan waa qayb dhan oo isku ogeyn dadka ugu faraha badan ee aqoon u leh arinta waxa weeye waa saaxiibadeena waa dadka muddada dheer aan isla soo macaamilnay safar isla galnay muddo iskuulka isla soo dhiganay weli dadka waxa weeye oo daacada dadka hor socod kale dadka wax badan bay inagu ogyihiin laakiin marar badan qofkan inuu kula mid kula yahay ama challenge yaraad ku wada jirtaan ama inaad iimihiisa ama waxyaabaha weaknesseskiisa ay ku muuqdaan darteed inay ka qariso inaad dhigi kara weedooniyow bal iimaha aan leeyahay ii sheeg bal waxaan ku wanaagsanahay ii sheeg bal waxaad igu dhaliilaysaa ii sheeg aad wax ka baran karayso ama wax uu aqoon u leeyahay waxa laga yaabaa marketing aad ganacsi ku jirto waxa laga yaabaa marketing inuu aqoon u leeyahay midka waxa laga yaabaa sales inuu aqoon u leeyahay midka waxa laga yaabaa habka wuxuu loo brand gra kullu dadka kugu hareereysan oo dhan ee nolosha kugu hareereysan ee marar badan aadan waxba weydiinaynin oo ego uu ku diiday inaad weydiiso wax badan bay hayaan marka inaad nolosha aad u noqoto ilmo yar oo kale oo ayaa muhiim ah oo ah inaad aad cid walba wax ka baran karayso ilmuhu yar uma aabayeel waxyaabaha dadku waaweyn ay xubaran waxbarashada ugu adag tahay ilmuhuna ugu fududahay waxyaabaha ka midka waxa weeye ilmuhu malahan waxyaabahan limiting beliefs kan anaga inagu xidhxidhanay silsiladaha anaga isku xidhna waxa ma bari karto waxa ma yeeli karaysa arinta labaad ee weyn waxa weeye inuu hebel miyad wax ka baranaysaa saacadan hebelkii challenge inuu kula jiro laakiin ma odhanayo ilmuhu yar laakiin waa ka duwan yahay ilmaha yar waxa ma baran kartid waxa ma yeeli kartid kuma xidhna sidoo kalena kuma xidhna arintan ah hebel waa challenge baad kula jirtaa ama hebel miyad saacadan yahow dhigi kartaan iyo kutubkan iyo akhri oo ama waxaan ii faa'iiday miyad dhigi karaysaa arinta iyagana kuma jirto qof waliba wax bay ka bartaa wax walba hareerooda maraya wax bay ka bartaa marka arintaas oo kale muhiim ah aqoontuna at the end of the day qofka heerkay gaarsiisa waa halka kutubkii xiliyatu talib ilm bari waxaan ka akhriyay ardayda loogu talagalay inay akhriyaan ka hor intaanay daraasaadka iyo aysan bilaabin waxaan ka akhriyay yani sheekhu wuxuu leeyahay waxa jira 3 shibri buu aqoontu leedahay ama aynu dhahay 3 jaranjarada koowaad qofku markuu koro takabara waa halka la yiraahdo weelka maran ayaa waxa ka dhex qayliya ayaa qaylo badan inta badan marka wuxuu leeyahay qofka shibriga koowaad ama jaranjarada inuu yiraahdo qofka jaranjarada koowaad kora takabara wuu isweynaysiiya oo saddexda kutub uu bartay baa ka dhex qaylinaya wax walba inuu yaqaan isku haysta qofka jaranjarada labaad kora tawaaduc uu leeyahay uu dhul dhigaa uu ay gaarisa heerka saddexaad waxay gaarsiisaa inaanu isu arkaba inaanu waxba aqoon at the end of the day aqoontu waa inay heerka ku gaarsiiso waa inaad u aragto inay aqoontu ku gaarsiiso heer aad leedahay waniyo wax aan aqaano ma jirto wax aan garanay ma deetana aad cid waliba aad arday u noqoto way waxaad garanaysaa field baa laga yaabaa ama takhasus baa laga yaabaa inaad si cumqiya u dhex gashay deetana mar walba aad ku sii fogaato ku sii xeel dheeraato waxaad ogaanaysaa mawaadiic cusub baa kugu soo baxaya waxaad hore u aqoon baa kugu soo baxaya deetana qofku wuxuu qanaaco ku gaadhayaa markaa inuu yiraahdo war inta waxa malaayiinta fanni ee jira culumta ee jira mid walba soo saas ma mid walba marka sida u gashid ee u sii gashid mar walba soo wax cusub oo kugu soo baxaya Soomaalida waxay tiraahdaa marka buuro baxda ayaad buuro kala aragtaa waa sidaas oo kale cilmiguna marka qofku wuxuu gaarayaa marka dama qanaaca uu leeyahay wani waxa way waxba ma aqaanba noloshu arday buu noqonayaa markaas ardaynimadu ay bilaabanaysaa qofku nolosha arday uu noqdo marka aqoonta inuu baranayno waa inuu heerkan gaarsiyo waa inuu dhudhumino jahligeena inta uu leeyahay markaas inay xikmadu xitaa bilaabanaysaa marka arintan xikmad baa keeni karaysa qofku inuu cid waliba wax ka barto ilmaha yar inuu wax ka barto xasharaadka iyo xamaaratada yani iska badaa subxaan allah yani
xasharaadka iyo xamaaratada layna yidhi marar badan wax ka barta oo qoranshada biniaadamku wax ka baranaya oo shinidu wax ka baranaya oo abuurku wax ka baranaya sideebaad uga baran la'dahay qof dhan oo biniaadama oo aqoon leh oo ku garanaya oo aad ogtahay inuu wax kugu dhaamo aad haddana aad uga baran kari la'dahay ego-ga uu kugu diidaya marka waa inaad ogaato actually book dhan baa jiro la yidhaahdo the ego is the enemy oo Ryan Holiday aan isku diyay shaqaysnayn inaan idin la wadaago inaasan jeclaysan maanta inaan idin soo gudbiyo aad baan ugu mahadsantihiin daawashada intaan muuqaal kale iyo barnaamij kale aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin rajeynayaa khayr aad u fara badan inta maan ku gaajaysan yahay gooli waa wali hal akhriyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh